waxaan leenahay mawduuca kani waa mawduuc markaasi culimadu ay wax badan ka soo bandhigtay waana mawduuc aan leenahay ilaahay mar haduu leeyahay qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard maanta culimada ugu waaweyn fanigan kama waranta waxa kamid ah doctorkan ugu caansan geology-ga ay yiraahdaan ninka afraad ee geology-ga buu ahaan jiray 80aadkii imika dawaaba laga yaabaa inuu sii dhaafay زغلول النجار waxa kamid ah Sheikh Zandani waxa kamid ah culimo badan oo maanta muslimiin oo faniga kan takhasusaad ka dhigatay oo soo bandhigaysa مثلا مسائلka ajabta leh Ilaahi subhanahu wa ta'ala Quraanka wuxuu kaga waramayaa مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان إلهي سبحانه وتعالى آيات قرآنك wuxuu tilmaamayaa Ilaahay inuu badaha isku daro oo ay kulmaan oo la isku walaaqo haddana quraanku wuxuu sheegayaa in barzakh uu dhaxeeyo waana isku darsamaynin haddana quraanku wuxuu sheegayaa yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjaan lu'lu' iyo marjaankana in laga soo baxo culimadu aayaadka waagi hore markay fasirayaan bacd al-ishkaalaat bay kala kulmi jireen ishkaalaadka ay kala kulmi jireen waxa kamid ah see loo fasirayaa bay yiraahdaan maraj al-bahrayn yaltaqiyan maraj المروج في اللغة وامحي الاختلاط فهم في أمر مريج أي مختلط واختلاط مرج البحرين إلهي وحسكو ولا قبال لي لبضي بضوط يقول ولبا محي يلتقيان هدنا وحل لي بينهما برزخ باود حيو لا يبغيان اسكو واحد قد بيان برزخ باود حيو اسكو واحد والله اسكو ولاقي هدنا برزخ باود حيه او اسكو واحد قد بيان مركز هدنا وحل ليدي markaas ay culimada badhooran jireen mala waa almaa'il adbi ya almaa'il maaliha oo wabiyada iyo kuwa kan oo kan meesha yar iska galaan hadana waxa la yakhruju minhum al-lu'lu' wal marjan lu'lu' iyo marjanka mid kamidana cilmiyan waxa loo geeyay biyaha dhanaan mooyeen inaan kuwa kale laga helin only biyada see hadana loo fasirayaa bay dhaahdaan hadana ana waa biyo macaan iyo biyo al-lu'lu' wal marjan qarnigi labaatanaad lixdameeyadiisii waa dhaweedo ah ayay waxay isku dayeen inay cadeyn karaan biyaha in barzakh u dhaxeeyo oo baduhu inay bada kala noocayiin dushun bay badka wadayeen inay isku nooc ahayn waxaana isku nooc ku ahayn marka laga eego kathafada density-ga waxaana isku nooc ka ahayn xaraarada kuleylka waxaana isku nooc ka ahayn muluuxada dhanaanka waxaana isku nooc ka wax walba ku kala gedisan badaha wax walba ku kala gedisan barzakh baa u dhaxeeya badaha waxa u dhaxeeya baleeyeen biyo labada dhinac midnaba aan la nooc ahayn oo laago u dhaxeeya laakiin mawjadu miyana jiidaynino markay mawjadu xagga ka soo dhacdo de intan yar inta qaato miyana xag ku dareemaya laagan yar kolba dhinacaas uu la soconaya dhanka mawjadu socoto luuqaas uu baa u dhaxaynaya isku darsay maayaan bada kataafadeedii iyo dhanaankeedii iyo macaankeedii iyo kuwa waxeedii wadata iyo taa kale waxeedii wadata iskuma darsamayaan inta biyo u dhaxaysa luuqa dhanun bay ula gurgureen laakiin meel fadaadoobeysa ma jirto biyuhu ka talaabayaan تنسى قياسان بين واجي دم بواحد يسوق حيستين مركب باب المندب كأكتي سبي كهنين exactly ماشي بيستاجين دبتنا بيها كوب مركبين على قدر مركب كه هي مركبين على كلا مركب كلا قدر ولا بيو كلا نوع هل مركب وميل تاجن وبدرين على مركب لقى صدر صدية مركبين على لقى صدر صدر ولا ببضوض كلا نوع وبد dhanaanka kulaylka muluuxada density-ga everything uu ka gedisan yahay badan kale labadaba lu'lu iyo marjaanka waa laga saaraya labadaba yaani wuxuu quraanku ka waramayay waqtiga bal waxyaabaha ajabta ay culimada qaar ku tilmaamaan waxa kamid ah xayawaanaadka dhan qura laazima dhanka kale xataa uma gudbaan dhankaasna xayawaan nooc gaar ah ku dhaqan
oo muluuxada iyo density-ga iyo xaraarada gaarka la dhaqma xaqaana nooc gaar ah ku dhaqan waxa ay nusuustani tilmaamaysaa nabi maxamed waqtigiisa salawaatullaahi wa salaamu alayhi waxa lama ogay quraanku wuxuu ka warramayaa wax tiro badan kownkan iyo siduu soo bilaabmay dukhaankii iyo wixii uu ka samaysnaa waxa uu ka warramayaa buuraha kan iyo nooca ay u samaysan yihiin iyo in buurtu ay wata tahay oo in saro taagan iyo in hooso taagan ay tahay inay buurtu rawaasi tahay oo dhulka kan inaanu gilgilanin yani buurtu ilaahay quraanka wuxuu ku tilmaamayaa in buuraha sababta loo taageeba ay tahay maxay la tamida bikum inaanu dhulku inala dheeldheelin haddii buurta la laayahay bay leeyeen maxaa dhici lahaa bere hore dhulku bayna daadin lahaa yani dhulka marka hoos loo kaco xagga hoose waa cajiin waa kulayl marka qasharadan sare meelaha ay ugu koobantahay oo 70 kilomitir meelaha wax yar bay ka dheertay marka 70 kilomitir meelaha la dhaafo cajiin hoose oo kulul oo isla rogaya loo tagaya buurtan sare intay kor u taagan tahay in ka dheer bay hoos jirtaa bay leeyihiin haddii aanay inta ay hoos jirtaa jirin gudahan cajiinka dushani way gilgilmi lahayd wuxuu noqon lahaa qolof khali wareegta khali wareegan waxa ka ilaalinaya watadiyada tan dhan walba kaga soo jira ayaa wuxuu ka ilaalinaya maxay inay khali wareegto waa masaa'il dhawaan la ogaaday yani waxaynu baabkan hadii la bilaabo waxaynu odhan karnaa maalin iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 waa ka warrami karnaa waxa maanta kutub ay culimadu ku qoreen marka laga tilmaamo ama basharka ha ahaado maqalkiisa ha ahaado asxaabul kaafka quraanka ilaahay kaga warramaya ahaado xidigahan iyo cirkan iyo dhulkan iyo say u sameeyeen ha ahaado inay kala fuqeen iyo bariga hore inay isku dhagsanaayeen ha ahaato biyaha iyo siday dhulka ugu jiraan ha ahaato roobka iyo siduu u soo da'o iyo daruuraha iyo noocyadka ay kala leeyeen yani quraanku wuxuu ka warramayaa daruuraha iyo noocyadkiisa iyo qaabka roobku uu kala deeyo kala nooca daruurta rukaamiga iyo tagayru rukaamiga daruuraha barafka wata iyo kuwan barafka wadan hilaaca kuwa leh iyo kuwan hilaaca wadan intaba quraanku uu ka warramaya laakiin bini'aadamku goormu ogaaday wuxuu ogaaday waagii la soo saaray transistorska